assalaamu calaykum. Dhalinyaro badan ayaa ku baraarugsanayn inay muslimiintu wax kasta iyagu ugu horreeyaan hal doorna u ahaayeen. Maanta muuqaalkan waxaynu kula wadaagayaa hal doorada islaamka kuwooda ugu muhiimsanaa soona saaray wax ilaa maanta lagu intifaacay laiskuguna faano. Waxa uu ahaa aabihii cilmiga kimistariga. Intaana waxa uu soo dheeray inuu wax ka yaqaanay cilmiga falaga, falsafada, macaadinta, cilmiga xadiiska iyo injineernimada. Haddaba waa ayo shakhsiga intaas oo sifo isku darsaday? Waa jaabir ibnu xayaan ibnu cabdullahi al-sindi. Waxa uu dhashay sanadu markay ahayd 101 hijriga waafaqsan 721 miilaadiga. Waxa uu ku dhashay magaalada Taws ee dalka Iiraan. Waxa uu u rixlaystay jasiiradda Carabta, gaar ahaana waddanka Yaman. Halkaas uu ku bartay Qur'aanka kuna xifdiyey iyo xisaabta. Jaabir ibnu xayaan waxa uu ka rixlaystay Yaman, waxaana uu u rixlaystay waddanka Ciraaq, gaar ahaana Kuufa oo ahayd hoygii cilmiga islaamka markaas. Marka uu Kuufa u rixlaystay, waxa uu halkaas ku bartay cilmiyo kala duwan, waxaana ka mid ahaa luqadda iyo cilmi kimistariga, falsafada. Jaabir ibnu xayaan waxaa lagu tiriyaa inuu ahaa aabihii daahfuray hal abuurayna cilmiga aynu hadda u naqaano kimistariga, taasoo ilaa maanta lagu ixtiraamo loogana dameeyo inay ku ixtiraamaan reer galbeedku. Waxaa lagu naanaysi jiray suufigii isdhowritaan iyo wanaag dartii ayaa loogu tilmaamay. Waxa uu ka mid ahaa haldooradii islaamka, waxaana ka mid ahaa kutubtii uu qoray lagana faa'iiday sanduuqul xikam, kitaabul mulki, asraarul kimiyaa. Waxa uu caalimku geeriyooday isagoo da'diisu tahay 95 jir. sanada hijrigu markay ahayd 197 hijriga waafaqsan 18 miilaadiga. Allahu naxariisto. Assalaamu calaykum.